sidoo kale leena waxa uu dhahaa inay ka dhiidiyaan waxa laga soo baxo waa in dhalinyaro la baabi'iyo waa in dhalinyaro la dabargeeyo tan masiibo qaran waaye waxay u baahan tahay waa in aan anagu mideyno tan hadaa ku mideyno weligan Allah aan mideeyo maanta Soomaaliyada maanta berri wixii Ilaahay ka dhigay noqon doonta insha Allah maanta Soomaalida jirta cadawaa hal waa shabaabka qaraxyada oo hotel Hayaat dadka kullaay oo 14 Oktoobar maxaan ku raadayay dadka maxaan ku kullaay kilomitir 5 iyo maalin walba saas u laaynayo argagixisaduna meel ay ku dhuumatay ma helayso waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba waa wax 10,000 oo qof ka yar oo 1,000 qofood ay ka dileen reer Hiiraan maxaa haray 9 baa haray qolo walba qolada la joogto meeshaas inay uga taqlustaan rabaa nimankaasi luqad aan maartaas ahayn oo ay yaqaanaan mala wax Allah wixii luqad bani aadan loola hadlo way soo gilgiliyeen maartaas bis yaqaanay waxaan codsanaynaa qof walba oo Soomaaliyeed oo heli karo inuu nimankaasi maar ku dhufto oo toorey la dhaco waxa haddana Ilaahay mahadiisa in maanta dadka Soomaaliyeed ay garwaaqsadeen oo ay fahmeen wax la sii fiirsan karo inaysan ahayn haddii aanay nafku ku badbaadin oo aanu maal ku badbaadin oo sharaf iyo cisi aanay ku badbaadin oo wax ku dhowrsano aysan jirin maba garan kara wax dadka Soomaaliyeed waqtigan inay ku soo gaarto maba ahayn